Ein neuer Freund. Hallo, ich heiße Tom. Ich bin 25 Jahre alt und komme aus England. Seit 3 Monaten lebe ich in Berlin. Ich arbeite als Koch in einem kleinen Restaurant. Jeden Morgen fahre ich mit dem Fahrrad zur Arbeit. Ich beginne um 8 Uhr und arbeite bis 16 Uhr. Mein Chef ist sehr nett und meine Kollegen sind freundlich. In meiner Freizeit gehe ich oft in den Park. Dort treffe ich manchmal Max. Er ist mein neuer Freund. Max kommt aus Deutschland und hilft mir mit der deutschen Sprache. Wir trinken Kaffee und sprechen zusammen. Ich finde Deutschland toll und lerne jeden Tag neue Wörter. Ein neuer Freund. Hallo, ich heiße Tom. Ich bin 25 Jahre alt und komme aus England. Seit 3 Monaten lebe ich in Berlin. Ich arbeite als Koch in einem kleinen Restaurant. Jeden Morgen fahre ich mit dem Fahrrad zur Arbeit. Ich beginne um 8 Uhr und arbeite bis 16 Uhr. Mein Chef ist sehr nett und meine Kollegen sind freundlich. In meiner Freizeit gehe ich oft in den Park. Dort treffe ich manchmal Max. Er ist mein neuer Freund. Max kommt aus Deutschland und hilft mir mit der deutschen Sprache. Wir trinken Kaffee und sprechen zusammen. Ich finde Deutschland toll und lerne jeden Tag neue Wörter. أهلا ومرحبا soo dhawaada akhyaarta waxaynu sharaxaynaa sheekadan oo magaceeda la yiraahdo Ein neuer Freund saaxiibkayga cusub. Hallo marxaba ich heiße magacaygu Tom wa Tom ich anigu bin 25 Jahre alt waxaan jiraa 25 sano komme waxaan ka imid aus England Ingiriiska seit 3 Monaten 3 bilood liebe ayaan ku noolahay ich anigu in Berlin magaalada Berlin ee caasimadda Jarmalka ich arbeite shaqadaydu als Koch waa cunto kariye in einem kleinen Restaurant anoo ka shaqeeya restaurant kleinen yar ka shaqeeya jeden Morgen maalin subax kasta faaqa waxaan ka haystaa ish anigu midam faaqad baaskiilkayga zur arbeit anoo shaqada la aada ish anigu begiine waxay ii bilaabataa 8 Uhr 8 und iyo arbeit waxaan bis shaqeeyaa ilaa 16 Uhr ilaa 16 waxaan shaqeeyaa 8 ilaa 16 ayaan shaqeeyaa waa tahay mein chef maamulahaygu ist isagu sehr nett waa nin aad u fiican net waa fiicnaan maxaa la yiraahdaa seerna waa aad iyo aad marka sehr nett waa nin aad iyo aad u fiican und meine sidoo kale Kollegen saaxiibadayda igala shaqeeya shaqada Kollegen waa saaxiibka shaqada kala shaqeeya baa loo yeeraa sin iyaguna waa freundlich waa kuwa aad iyo aad u fiican in meine Freizeit waqtiga aan helo fasaxa kee waxaan aadaa ich oft maartay inta badan in dem Park beerta dort halkaas daqiiqa waxaan kula kulmaa ish anigu mahmal inta badan Max ayaan kula kulmaa isagu ist mein neuer waa saaxiibkayga Freund cusub neuer cusub Freund saaxiib waa tahay waa saaxiibkayga cusub Max isagu kommt wuxuu ka yimid aus Deutschland Jarmalka und hilft wuxuuna iga caawiyaa mir aniga mit der Deutschen Sprache ku hadalka af Jarmalka wir trinken waxaanu cabnaa kafee und iyo Sprachen waanu wada sheekaysanaa zusammen anagoo wada jirnaa ish anigu finde waxaan ka helay Deutschland Jarmalka toll inay tahay mid aad u fiican und lerne waana bartaa jeden tag maalin walba neue Worte erayo cusub ayaan bartaa waa tahay sheekadan markay haddaan hal mar dul marno waxa weeye waxa la yiraahdaa ciwaankeeda Ein neuer Freund saaxiibkayga cusub hallo ich heiße Tom magacaygu waa Tom ich bin 25 Jahre alt waxaan jiraa 25 sano und komme waxaan ka yimid aus England ayaan ka yimid seit 3 Monaten lebe ich in Berlin waxaan 3 bilood ku noolahay Berlin
ich arbeite als Koch waxaan ahay cunto kariye ama cook in einem kleinen Restaurant anoo ka shaqeeya restaurant yara ama maqaaxi yar jeden Morgen mal subax kasta faaqa waxaan ka haystaa ich mit dem Fahrrad zur Arbeit baaskiil anoo la aado shaqada ich beginne 8 Uhr und arbeite bis 16 Uhr shaqada waxaan bilaabaa beginnt 8 Uhr 8 und arbeite waxaan shaqeeyaa bis ilaa iyo 16 Uhr 16 mein Chef maamulahaygu ist sehr nett waan aad u fiican und meine Kollegen kuwa meesha igala shaqeeyana saaxiibada igala shaqeeyana sind freundlich waa kuwa aad u fiican oo dabacsan oo wanaagsan in meine Fachaysayd shaqadaydu ich oft inta badan in meine Fachaysayd waqtiga aan helo fasaxa geeyo waxaan aadaa anigu oft inta badan in den Park maxaa la yidhahdaa beerta dort waxaan halkaa kula kulmaa dort halkaas trefe waxaan kula kulmaa ich mach mal inta badan anigu waxaan kula kulmaa Marcus isagu ist mein neuer Freund waa saaxiibkayga cusub Marcus wuxuu ka yimid isagu aus Deutschland Jarmalka und hilft wuxuuna iga caawiyaa mir aniga mit der deutschen Sprache ku hadalka af Jarmalka wir trinken waxaan wada cabnaa kafeega und sprechen waxaan ku wada hadalnaa zusammen si wada jira ich finde Deutschland toll Jarmalku waxay ii noqotay mid aad u wacan oo u fiican und lerne jeden Tag neue Worte waxaanan ku bartaa maalin walba erayo cusub waa tahay intaas ayay ku ekayd si fiican u soo akhri erayada maaragtay cusub ee aad ku aragtid qoro si fiican ugu fiirso jumladaha iskuna diyaari layliga sheekadan